Shimbirka gorgorka waxaa lagu tiriyaa shimbirada adduunka ugu halista badan, ugaadhsanada xayawaanada dhulka hoostiisa jooga. Gorgorka waxa uu ka mid yahay shimbiraha ugaadhsada xayawaanada kale ee cuna. Waxa uu noocyo badan yahay, waxaa lagu qiyaasaa jinsiyadda gorgorka inuu kasoo jeedo 63 nooc oo kala jaad ah. Gorgorka waxa uu leeyahay af dhuuban oo adag iyo ciddiyo dhaadheer oo uu ku diiwaangashado. Miisaankiisa waxaa lagu qiyaasaa gorgorka 5 ilaa 8 kilo inuu celcelis gaaro. Baalashiisana waxa ay gaadhaan ilaa 60 ilaa 75 sentimitir, lugihiisuna waa kuwo awood badan. Noocyada gorgorka waxa uu si toos ah u duuli karaa 60 mayl saacadiiba, isagoo samada haadaya. Waxa uu dhulka ka arki karaa wixii uu ugaarsan lahaa cabbir dhan 200 mph. Shimbirka gorgorka waxa uu leeyahay awood fogaan arag ah oo lagu qiyaasay 2.6 oo jeer, taas oo ka awood badan bini'aadamka caadiga ah aragtidiisa iyo finan aragtidiisa. Baalasha gorgorka waa kuwo xooggan una saamaxaya inuu adeegsado habab fara badan oo kala duwan. Marna wuu fidiyaa, marna wuu iska dhijiyaa sida diyaaradaha miyiga oo kale. Gorgorka waxa uu ka mid yahay shimbiraha hayaama oo gala safarada dhaadheer, waana keligii socod. Waxay isku yimaadaan marka ay taran kaliya iska raadinayaan. Gorgorka waxa uu leeyahay hab ahaantiisa iyo bahda shimbiraha marka la magacaabayo scientific classification. Shimbirka gorgorka dhedigiisa waxay u dhashaa ukun oo ay ku tarmaan. Waxaa maalmahan la soo sheegay in meelo badan uu ka buuxay gorgorku, hadeer uu si uga soo yar dhamaaday. Shimbirka gorgorka da'diisu waxay gaadhaa ilaa ugu badnaan 70 sano, laakiin marka uu gaadho 40 sano ayay ciddiyihiisu waayaan dabacsanaantii, waxaana uu awoodi waayaa inuu wax ku ugaadhsado iyadoo ahaa kaliya ee uu ku raadsan jiray raashinkiisa iyo cuntadiisa. Afkiisa dhuuban ayaa isna noqda mid af daran oo qalloocsan. Da'da uu gaadhay ayaa keentay in labadiisa baalla ay ku baahaan baalasha. Waqtigaas ayuu gaadhaa go'aan adag oo ah inuu isu dhiibo geerida, ama uu qaato go'aan kale oo xanuun badan. Muddo 15 maalmood ah, shimbirkan ayaa meel buura tago, afkiisa dhuubanna la dhaca salaxyada waaweyn si uu u jabo. Waxa kale oo uu jejebiyaa ciddiyihiisa dhagaxaanta ayuuna la dhacaa, isagoo marka dambena iska gooya baalasha faraha badan ee soo fuulay. Waxa yaab noqotay marka uu muddo 30 maalmood uu gaadho oo uu joogo. Intaa kadib waxa uu sameeyaa wuxuu noqdaa shimbir dib u soo dhasha oo yeesha af cusub iyo ciddiyo cusub iyo baalal cusub, isagoona muddo 30 sano oo kale oo dheeraada sida ugu sii noolaada. Waana shimbiraha Ilaahay uu ku badiyay dhulkiisa una ku intifaacsaday. Shimbirka gorgorkana inta badan waxaa laga soo qaataa indhihiisa ama ishiisa kaamirooyinka caalamka ugu casrisan uguna quruxda badan, sida kuwa kubadda cagta lagu daawado, hadday noqoto in ay noqoto kuwa fogaan araga, hadday noqoto moobilada dambe casriga ee kaamirooyinka. waxaasoo dhanba waxaa laga soo alifaa waa isha gorgorka. Asxaabtayda qaaliga waxaan ka codsanayaa YouTube inaad subscribe saartaan, page-kana aad follow garaysaan, like share intana aad ku dadaashaan. Inoo kulanti dambe oo xiiso leh iyo waxyaabo badan oo idin xiiso geliya insha Allah.